من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودهان ولا لها الصوماليين ملك استاجوكتان جودية دبدبة وحاد لي هاي سودا وهذا وولالكين دكتور عبد الكريم محمد علي دكتور كرم ما أنت وحاربة ولا لها الصوماليين ملك استاجوكان إن لو ذاقو بشارة داسي محي تهاي محي كساب سنتهاي أيان ربا إن إذن لو ذاقو بشارة داسي وحي تهاي إن ما أنت إذن ربنا إذن شيء inaan helay daawadii loogu talagalay ku habooneyd xanuunka bulshadeena aadka ay ugu badan ee loo yaqaano baabasiirta. xanuunkaasi wuxuu sababaa ama runtii aad ku arkaysaa bulshada kuwa qalimo u galay, kuwa runtii jiif iyo joogba u diiday, kuwa runtii mar walba ka cabanaya runtii ayaad ku arkaysaa dad iskala nool ayaad ku arkaysaa. marka waxaan rabaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogan inaan uga faa'iideeyo fursadan. xanuunkani runtii wuxuu ka bilowdaa caloosha ayuu ka soo bilowdaa, waayo calooshaadu haddii ay taagan tahay ama constipation uu jiro calooshu waqti badan ay taagan tahay waxay runtii riski ugu jirtaa mar walba inaad baabasiir develop garaysid ama in baabasiir kugu dhacdo. waayo baabasiirtu wax kale kama bilaabato, waxa ay ka bilaabataa waa caloosha oo taagan. waxa ku xigta qofka caloosha markay ay istaagto uusan waqti badan saxaroon saxaradii adkaato marka wuxuu sameeyaa inuu xoog isaga soo saaro oo xoog yacni uu isu soo dhaafiyo. taasina waxay dhaawac u geysanaysaa rectumka iyo qaybtan analka gudaha oo runtii mar walba tissue-ga jilicsan ayaa dhaawac gaadhaya. taasina waxay mar walba dhifaabogalanaysaa qofkii inuu nabarkaasi uu weynaado uu runtii bararo dhiig sameeyo saxaradiisa dhiig soo raaco xanuun dareemo ayaa lagu arkaa. wuxuu kaloo lagu arkaa qaybtan analka ee wax ka baxaan ayaa wax ka soo baxa finan hareeraheeda nabrahaasina waxay ku sahlaysaa qofku inuu cuncun fara badan inuu yeesho, inuu gubasho dareemo oo baanin uu qofku in lagu arko oo cuncun fara badan in lagu arko. inta badan marka waxa common in nabrahaas ay cuncun fara badan ay sameeyaan. cuncunka marka ay sameeyaan qofku wuxuu sameeyaa gacantu isla aadaya dhiig buu kaga keenaya maxaan ku dhahay bulshadii yani fadhigii baa qofkii ku adkaanaya gaari ma raaci karo ma wadan karo mar walba wuxuu sameeyaa yani waxyaabahaas isku arkaya. marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo. waa laga reestay maanta runtii inaad qalin gashid inaad isku eegatid. runtii waxaan idin leeyahay fadhiga ka kac Al-Shifa Herbal Medicine toos ugu tag daawadaana ka dalbo. daawada marka waan ka soo qaatay waxaan rabaa inaan idin la wadaago idin la share gareeyo. waa daawo really aad iyo aad loo bogaadiyay dad badan oo isticmaalayna arkay runtii yani feedback ii soo laabtayna uu yahay mid guuleystay. marka daawadaas aan rabaa inaan idin la wadaago. waxaan rabaa daawadaas insha Allah haddii Ilaahay idinka ka dhigo kule xarumaha Al-Shifa Nairobi, Hargeysa iyo Muqdisho waa ka helaysaan. marka bal daawadaas aan isla share gareyno aan wadaagno muuqaalkeeda iyo design-ka ay leedahay iyo qaabka ay tahay. okay daawada ugu horeysa waa tan. daawadan waxaa la dhahaa DBS Al-Shifa. waxaa sameeyay kambaniga Al-Shifa. waxaad sameynaysaa marka aad isticmaalaysid ama qaabka aad u isticmaalaysid waxaad sameynaysaa caanaha loo yaqaano yogurtka ayaad soo qaadanaysaa.
caanaha markaa soo qaadatid waxaad kaloo soo qaadanaysaa qaadada kafeega. labada markaa heshid waxaad samaynaysaa hal qaado oo qaadada kafeega ayaa ku darsanaysaa, dan waa ku walaaqaysaa. caanihii yogurtka ahaa baad ku walaaqaysaa, dan waa isticmaalaysaa 2 waqti cuntada ka hor. 2 waqti cuntada ka hor ayaa isticmaalaysaa. kambaniga ayaana sameeyey Al-Shifa, aad baa idinku mahadcelinayaa. tan kale waxay tahay waa kiniinkan isagana 60 xabaa ku jira. 2 waqti ayaa isticmaalaysaa. 2 waqti cuntada ka bacdi ayaa isticmaalaysaa. runtii wuxuu kale u fiican yahay waxa la yiraahdo equationka xataa maaragtay kaliyaha iyo inta badan waxaan xanuunka faraha badan iyo waayo baabasiirtu waxay leedahay calaamadaheeda kamida in qofka jirko dhan inay huro, korku hurniin uu sameeyo ama kulayl, caguhu inay ku gubtaan ama baanin ka dareemaysid, lafuhu inay ku xanuunayaan, daal fara badan ina leedahay. runtii haddii aad xaasle tahay ama haddii reer kuu joogo ama rag ah ama dumar ah, runtii dareenku ama sensigu wuu ka yaraanaya. wax kalena maaha, waa baabasiirta. xaqiiq way taasna waxaan ku leeyahay maanta waa laga daawoobay ama waa laga reystay. waxaan ku leeyahay booqo kambaniga Al-Shifa ayaad ka helaysaa daawooyinkan. kiniinka kale waa kiniinkan wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay. waa kiniinkan caagaas ku jira, waxaa ku jira 60 xabo. qofku wuxuu samaynayaa habeenkii iyo maalintii cuntada ka bacdi uu isticmaalayaa. waa safe, waa natural, maaha chemical. marka kiniinkan wuxuu u fiican yahay wax la yiraahdo inuu qofku uu isku arko maaragtay wax la dhaho baabasiirtu waxay leedahay dhiig fara badan, waliba ta internaalka waxa lagu arkaa qofka saxar badan soo xataa marmar dhiig iska soconaya la arkaa. marka taas maxay ka joojinaysaa dhiigii soconayay. waxay kaloo ku samaynaysaa meeshii nabarku ku yaalay way ku qalajinaysaa. wala faa'iido ma igaysaa, yani dhiigii way joojinaysaa, meeshiina way qalajinaysaa. maxay kaloo tahay waxay kaloo ku samaynaysaa wax la yiraahdo maxay, yani cuncunka tii lahayd ama cuncunkii faraha badnaa way ka joojinaysaa, iyo kulaylkii faraha badnaa labadaba way ka joojinaysaa. maxay kaloo samaynaysaa caloosha haday ku fadhiday way ku socodsiinaysaa, oo waxay ku samaynaysaa movement socod aan saayid ahayn, laakiin saxaradaada maxay ku samaynaysaa way jilcinaysaa. yani wax laxative oo kale weeye. marka kiniinkaas waxaan idin leeyahay walaalaha daawadaas ha doontaan, waa daawo aad wanaagsan runtii. waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iideeyo kiniinkan isna waxaa ku jirta 60 xabo. qofku wuxuu isticmaalayaa habeenkii iyo subaxdii cuntada ka bacdi ayuu isticmaalayaa. kor xanuunka maxaan ku dhahay iyo daalka faraha badan, cagahurka, waxyaabahaas oo dhan way ka suulayaan. aad buu u fiican yahay. marka waxaan idin leeyahay walaalaha doonta daawadaas xarunta ka doonta. waxaa jirta oo lagu arkaa yadana cuncun qaybta u dambaysa. cuncunkaas maadaama meeshan ay tahay meel wax ka baxaan, bacteria fara badan ay ka jiraan, mar walba qoyaankeeduna uu badan yahay, waxaa laga rabaa inaad samaysid wax la yiraahdo boomaatadan inaad isticmaashid. yadana waa boomaato aad u wanaagsan runtii. waxay ku samaynaysaa wax la yiraahdo cuncunkii iyo nabrihii meesha ku yaalay iyo wax oo dhan waxay ka dhigaysaa lubrication. cuncunkiina way ka goynaysaa, meeshiina way ku qoynaysaa, hadhowna meesha way qalalaysaa, wayna ku reysanaysaa. marka idamka ilaahay insha Allah hadii ilaahay yiraahdo waxaa jirta dawooyin kale oo runtii baabasiirta loo isticmaalo oo xarunta yaala. idamka ilaahay waxaan idin rajaynayaa idinkuna ina caafimaad doontaan.
aad baan idiin salaamayaa walaalaha guud ahaan meel kasta joogtaan waa walaalkiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.